Taariikhda kubadda cagta waxaa dhifi naadir ah in hal koox ay ku midoobaan saddex xiddig oo mid kastaaba uu yahay midka adduunka ugu sarreeya, balse kooxda Barcelona ayaa dunida tustay muddadaas markii ay isku keentay Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar Jr. Dunidu waxay markhaati ka ahayd isbahaysigii ugu awoodda badnaa ee abid soo mara garoomada. MSN ma ahayn oo kaliya saddex weeraryahan oo goolal dhaliya, balse waxay ahaayeen saddex saaxiibo oo kubadda ku ciyaara farshaxan iyo isfahan mucjiso ah. Muddo gaaban gudaheed, waxay Barcelona u horseedeen guulo dhaxaltooyo ah, iyagoo dhigay rikooro gool dhalin oo aan weli la jebin, isla markaana qalbiyada Barcelona ku reebay xusuus aan marnaba duugo weyn. Haddaba saaxiibayaal, waxaan idinkaga soo diyaariyey 15 qodob oo si qoto dheer u falanqeynaya guulihii iyo rikooradii cajiibka ahaa ay wada dhigeen saddexda halyeey ee Messi, Neymar iyo Suarez. Hase yeeshee, is-xasuusin haddii ay tahay markii ugu horeysay ee aad soo booqato barteena YouTube, fadlan subscribe noo saar, sidoo kale like saar muuqaalkan oo u share garay saaxiibadaada. Sidoo kale, haddii aad iga daawanayso Facebook page-keena Guriga Ciyaaraha TV, fadlan na soo follow garay, like saar muuqaalka oo u share garay saaxiibadaada. Mahadsanid. Aan usii gudagalno muuqaalkeena. Qodobkeena koowaad: bilowgii curashada MSN. Xilli ciyaareedkii 2014-2015 ayay si rasmi ah u midoobeen MSN. Neymar ayaa kooxda yimid 2013, halka Luis Suarez uu ku soo biiray xagaagii 2014 isaga oo ka yimid kooxda Liverpool. Markii hore, dadka qaar ayaa shaki ka qabay in saddex xiddig oo heerkaas ay hal koox wada matali karaan, balse waxay noqdeen isfahan aan la celin karin. Safashadoodii ugu horeysay. Kulankii ugu horeeyay ay saddexdoodu rasmi ahaan garoonka u wada galaan wuxuu ahaa mid taariikhi ah, kaas oo ahaa kulankii El Clasico ee ka dhacay Santiago Bernabeu bishii Oktoobar 2014. Inkasta oo kulankaas laga badiyay Barcelona, haddana wuxuu ahaa bilowga safar cabsi badan. Saddexleydii koob. Xilli ciyaareedkoodii ugu horeeyay ee ay wada ciyaaraan 2014-2015 waxay ku guuleysteen saddexda koob ee ugu waaweyn: La Liga, Copa del Rey iyo UEFA Champions League. Waxay noqdeen weerarkii ugu horeeyay ee koox u horseeda laba jeer oo kala duwan inay Treble Cup ku guuleysato. Goolashii tirada badnaa. Xilli ciyaareedkii 2014-2015 saddexdooda waxay dhaliyeen wadajir ahaan 122 gool. Messi wuxuu dhaliyay 58 gool, Neymar Jr.na waxa uu dhaliyay 39 gool, halka Luis Suarez oo ganax ku maqnaa qayb ka mid ah xilli ciyaareedkaas uu dhaliyay 25 gool. Jabinta rikoorkii Isbaanishka. Xilli ciyaareedkii labaad ee 2015-2016 waxay jabiyeen rikoorkoodii hore iyagoo dhaliyay 131 gool tartamada oo dhan. Tani waxay ahayd goolashii ugu badnaa ay saddex weeraryahan oo hal koox ah ka dhaliyaan horyaalka Spain taariikhda. Iskaashiga iyo caawintooda. MSN waxa ka dhigay kuwo gaar ah ma ahayn oo kaliya goolasha, balse waxay ahayd siday isugu caawinayaan. Waxay isu dhiibeen boqolaal caawin, iyadoo aysan jirin wax xaasidnimo ah ama iskoobid ah, taas oo ka dhigtay inay noqdaan saaxiibo dhab ah gudaha iyo dibadda garoonka. Goolashii finaalka Champions League 2015. Finaalkii Berlin ee ka dhanka ah Juventus, MSN waxay muujiyeen tayadooda. Suarez iyo Neymar ayaa dhaliyay goolashii guusha ee 3-1, halka Messi-na uu ahaa maskaxdii ka dambeysay ciyaarta oo dhan. Wadarta goolasha 3 sano 2014 ilaa 2017. Muddadii 3 sano ahayd ay wada joogeen, MSN waxay dhaliyeen wadar ahaan 364 gool tartamada oo dhan. Waa tiro ka badan inta ay dhaliso koox dhan oo weyn muddadaas. Koobabkii ay wadajirka u qaadeen. Muddadaas ay wada joogeen waxay ku guuleysteen wadar ahaan 9 koob oo kala ah: 2 horyaal oo La Liga ah, 3 Copa del Rey, 1 Champions League, 1 FIFA Club World Cup,
hal UEFA Super Cup iyo hal Spanish Super Cup. 10 rikoorkii Luis Suarez sanadkii 2015 2016 Luis Suarez wuxuu ku guuleystay abaalmarinta gool dhalinta ee La Liga iyo Kabta Dahabka ee Yurub isagoo dhaliyay 40 gool oo La Liga ah. Wuxuu ahaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee jabiya sareynta Messi iyo Ronaldo muddo dheer. 11 sixirka Lionel Messi wuxuu ahaa wadnaha MSN, isaga ayaa u ahaa hagaha iyo farsameeyaha muddadii ay MSN wada joogeen. Messi wuxuu ku guuleystay abaalmarintiisii shanaad ee Ballon d'Or 2015 isagoo tusaale u noqday hogaaminta weerarkaas. 12 kor u kaca Neymar Jr. Neymar waxa uu u xuubsiibtay inuu noqdo ciyaaryahanka saddexaad ee adduunka ugu wanaagsan muddadaas. Wuxuu dhaliyay goolal muhiim ah isagoo muujiyay xirfado farsamo oo indhaha caalamka soo jiitay. 13 guushii taariikhiga ahayd remontada. Kulanka ugu weynaa ee ay taariikhda ku dhex leeyihiin waa soo laabashadii 6-1 ay kaga badiyeen PSG sanadkii 2017. Neymar ayaa ahaa geesiga kulankaas halka Messi iyo Suarez ay iyaguna door muhiim ah ku lahaayeen. 14 saaxiibtinimada garoonka dibadiisa. Mid ka mid ah siraha guusha MSN waxay ahayd saaxiibtinimadooda. Waxay ahaayeen saaxiibo isku dhow oo qoys ahaan isu booqda, taasoo u sahashay in garoonka dhexdiisa ay isku helaan si indho la'aan ah. 15 dhamaadkii MSN Agoosto 2017. Waayihii MSN waxay soo xirmeen markii Neymar uu u wareegay kooxda PSG bishii 8 ee 2017 isagoo ku baxay qiimihii ugu qaalisanaa ee abid ciyaaryahan lagu iibsado €222 milyan. Inkasta oo ay kala tageen, haddana MSN waxay weli ku hartay qalbiyada taageerayaasha sidii weerarkii ugu quruxda badnaa ee kubadda cagta soo mara. Ugu dambeyn, waxaan soo gaarnay gabagabada iyo gunaanadka sheekada MSN. Waayihii MSN ma ahayn oo kaliya xilli goolal iyo koobab la ururiyay, balse waxay ahayd xilli dunidu ku raaxaysatay farshaxanka ugu sareeya ee kubadda cagta. Isfahamkii mucjisada ahaa ee ka dhexeeyay Messi, Suarez iyo Neymar wuxuu tirtiray caqabad kasta, iyagoo xaqiijiyay in saaxiibtinimadu ay tahay furaha guusha garoonka dhexdiisa. Inkasta oo Neymar uu macsalaameeyay Camp Nou 2017, haddana saameyntii ay reebeen waxay sii joogi doontaa qalbiyada taageerayaasha Barcelona ilaa inta ay kubadda cagtu jirto. Haddaba saaxiibayaal, waxaa intii noogu eg waayihii quruxda badnaa ee MSN. Intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.